qaabkii isagu uu rabay ayaa loo duubay qaabkii isagu raali ka ahaa ayaa loo duubay qaabkii yani loo directay gareeyay ee isagu uu jeclaa ayaa loo duubay. عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الهانتين ميل كسر دون كات كشوكتان مرة بعدين ولا لكم ارتيادنا هالكنا قد دعونا سان وارير تيجي فلنا هتاك كعسبتين كنارك سبسكرايب صار كنارك لايك شير كري لو ذاك أصحابنا هلبنا قرابينا استوى كله وحاجة حسوسينا مركز نصاب وقت إن سبسكرايب راح كسيسه كمبلير كنا وب كسيسه سادونا قطه دعوة هو رأي مقالدنا أما برنامج كدينا عن سوق لنا بارتن سكستوى تبع كنارك هالك يلا وحجماوي official كويا استوى ولكن وإن نجمد سيد عدد إنه هيت أنا بقين مسؤول على الهواء عريرة كويا يسجن مرة سكستيا تبع مرة بعد مقال اسمه مقال كأنه هي ما توحويا مقال كجدسن مقال ده هراء قلت بس إسقاط سجى يو يعني هذا الحين أبو الند أم فنانيته يعني براه بالشدة كمغناط لكن ما أنت أي دي بصور أسبونات دي بصور على تي وحلالية هي أما وحلالية دتكي dagaalkii fanaanadu dib ay soo laabteen maxaa kalifay haddaba muuqaalkan aan inoo hayaa maanta waxa weeyaan fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani iyo Khadar Ibrahim Keyow oo muran xoogan dhexdooda ka jiro murankaasi oo ah inay isku haystaan hees kale wad wada garanaysan hees bay soo wada qaadeen heesta ay soo wada qaadeen waa heestii saaxiib aan fici karaa ayaha dambeetiyo ereyada intaasan ka sii xasuustaa si kastoo ayaa waxa uu saluugay qaabka loo soo galiyay baraha bulshada ama bas loo duubay ama yani loo baahiyay si kasta ay taba Qamar Suugaani wuxuu saluugay dadku way wada garanayaan yani waxa iska maamushay heestii gabigeedaba inanka Khadar Ibrahim Keyow fanaanka Soomaaliyeed ayaa iska maamushay oo qaabkii isagu uu rabay ayaa loo duubay qaabkii isagu raali ka ahaa ayaa loo duubay qaabkii yani loo directay gareeyay ee isagu uu jeclaa ayaa loo duubay waxba lagama weydiin heestii Qamar Suugaani maadaama ay labadoodu wada qaadeen ayna habooneed in labadoodaba afti laga qaado lana weydiiyo la yiraahdo war Qamar sideen u duubnaa war Khadar sideen u duubnaa meer dhaxal isku imaado yani si ay labadooduba raali ka yihiin muuqaalka loo duubay heesta waa hees aad u macaan runtii wallahi ismacaasiya waa hees aad iyo aad macaan qiimo badan ahmiyada loo soo qaadana ay ka weyn tahay ahmiyada midiyaha loo soo galiyay yani waa hees qisad dhaba xambaarsan in yani saaxiibka uu ku ahaado qof adduunyada gib aga qaalisan oo yani kun karoona Soomaa marka waxaan jeclaan lahaa muuqaalkan inaanu yani wax xurguf aan ka dhalan laakiin ugu dambeyn hortaan waxaan fiirsaday mataqaana hees kasto oo saameyn leh bulshada qabsi kama soo dhaxweydo heestii ugu dambeysay guuladsiinba soo qaaday ninba sheeganay heestii Marwaan Yare iyo yani dayaxtan nushe wax labadooda laftooda isku haystay heestii kasii horeysay yani STHD BK Ahmed B4 imika fanka kaba baxay ayaa isku haystay hees kasto saameyn bulshada dhexdeeda ku leh maxay qabsi ama yani shaqaaq dhexdooda soo gashay wata isweydiinta mudan marka saaxiibayal aan muuqaalka idinka dabageeyo muuqaalka soo qaadan mayno sabab jira darteed hadii aad ka soo hadashaba yani muuqaalkan oo meesha keento khibreed baa lagu saarayaa marka sababtaasaynan yani u soo qaadanayn laakiin muuqaalku dhameystiran way tiri ka soo daawada halkaas aad ka arkaysaan marka halka ka soo daawataan ayaad anigana insha Allah aduu Ilaahay raahdo ee garaabi doontaan hadii aad hore u daawatayna muuqaalka wixii kaaga baxay ee yani aad ka dareentay adigu commentiga hoose nugula wadaag si kastoo ay haataba heestan raali kama wahan Qamar aan raali uga hayna waxa weeyaan looma duubin qaabkii isagu rabay yani muuqaal uu isagu leeyay laga ma qabanba muuqaalka waxa lahaa Khadar Keyow wada ogsoontiin heesta intiisa ugu badan codkii Qamar Suugaani oo baxaya ayaa muuqaalka kamarada wax lagu qabanaya Khadar Keyow idii sheegmayso wada aragteen yani isha macaan la ya anigu waxba idin tusimaayo isha macaan la wada aragteen baan filaya heestan inta yare uu ka leeyahay yani Qamar Suugaani ee kamarada lagu hayo wada ogsoontiin heestii malabay kartidaada niyada ka maqsuutay heestii yani isagu lahaa ayaa la iswaafajiyay iyo heestan maadaama labadoodu midna Hargeysa joogay midna Muqdisho joogay yani sababta ugu weyn ee muranka keentayna waa taa Qamar Suugaani wuxuu uu rabay in labadoodu ama isna uu Muqdisho tago ama Khadar Keyow oo Hargeysa yimaado muuqaalkana si wada joogta looga qabto laakiin heestii waxa iska maamushay oo yani mulkiyadeeda lahaa Khadar Keyow sidii uu jeclaana loo duubay waayo waxa idin marxaatiya heesta malabo soo daawada soo iyadoo dhameystiran tagtaan soo daawada heestan kale saaxiibkana daawada way tiri baan soo galiyay marka isma waafaqsana labada heesood isagoo codkii aynu Qamar maqalno ayaa kamarada waxa inuu lagu qabanayaa ama fiidiyoga waxa inuu la dul geenayaa Khadar Keyow inta ugu badanna wax soo muuqda Khadar Keyow way wada ogsoontiin muranka xoogan
waxaa yacni dhaliyay heestan qamar suugaani iyo khadar kayow oo saaxiib aad isugu dhow ahaa ayaa labadooduba imika kala cadhaysan yihiin walow imika uu khadar kayow hargeysa jooga sidii la sheegay anigu ma hubo wiil aan aad u saxaab nahay oo yacni hargeysa jooga oo hargeysa meherad kule ayaa yiri anigu yimi waxa soo geeyibsaday anigu sheegi mayno laakiin wuxuu yiri khadar kayow hargeysa jooga sababta uu yimina waxa weeyaan in heestan la duubo heestii laakiin waaba la soo galiyba maxaaba yacni la duubiba yacni qamar suugana aad buu cadhooday xitaa wada ogsaneed markii uu yacni adisaba laga soo daayay ee xadhiga badan uu ku xidhnaa khadar kayow hargeysa markuu yimi fanaan kale uu kicin kaligiiba hargeysa ku watay boorame wada tageen soo dhaweynta adduunka ayuu qamarku u sameeyay khadar kayow imika uu muqdisho ka soo noqday uu hargeysa yimina wax soo dhaweyna umu sameyn waa ku kacsanaanta uu ku kacsan yahay heestan Soomaa isha macaan la saaxiibayaan ma wax walba in laga gadaya heestan muhiimad badan bay dhalisay sixadeeda iyo isqalqabsigeeda ayaa farabatay si kastoo yaataba inta yar kooban ayaan rabay inaan la wadaago caawa aad iyo aad baan mahadsantihiin meel kasta adduunka aad ka joogtaan saaxiibayaal markii koobaad aadna soo boqotaan hadday tahay kanaalka subscribe saara muuqaalkan la gareeyo share gareeyo la wadaaga asxaabtina eheladiina iyo qaraabadiina aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaad leeyahay inoo muuqaalka ku xiga waa walaalkii martayaadan aad leeyahay ma kala caajisno hayoha aad iyo aad baan idin salaamay meel kasta adduunka aad ka joogtaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh